shan sirood oo aan la wadaagin dadka kale. qof kastoo bini'aadam ahi wuxuu leeyahay siro u gaar ah. qaar ka mid a sirahaasna maalin kaste dadka ayuu la wadaagaa, qaarkoodna dad yar oo uu ku kalsoon yahay ayuunbaa og. balse waxaa jira qayb saddexaad oo aanu cidnaba u oggolayn inay ogaato. halkan waxaan idinku soo gudbinayaa 5 sirood oo aan dadka kale lala wadaagin si kastoo aad ugu kalsoon tahay. hankaaga nololeed waa fikrad wanaagsan inaad had iyo goor maskaxda ku hayso hadafka aad ka leedahay nolosha iyo waxaad rabto inaad ka gungaadho mustaqbalka dhow iyo ka fogba. sababtoo ah waxaad sugaysaa jaaniskii aad ku gaadi lahayd guusha, balse inaad hadafkaaga la wadaagto dadka waxaa ka dhalan karaa inay dadku kugu soo celceliyaan inaadan gaadhi karin waxaad hiigsanayso. taasina waxay keeni kartaa inaad ka niyad jabto hadafkaaga. habka aad u nooshahay badanaa shakhsiyaadka hab nololeedkooda dadka kale la wadaaga waxaa la ogaaday inay ka shaki badan yihiin dadka, qaab dareenkooduna aanu hagaagsanayn oo uu marna sare u kaco marna hoos u dhaco, caafimaadka iyo farxadda dadka kalena ay iyaga dhibto. haddaba haddii aad nolol heer sare ah ku jirto iyo haddii aad mid hoose ku jirtaba, isku day inaad waayahaaga uurka ku haysato oo aanad cidnaba la wadaagin. dhibka familigaaga waa waxa ugu weyn ee ka qayb qaata korriinka qofka caqli ahaan iyo jir ahaanba, waxaana qasab ah inay la soo darsaan marxalado adag iyo qaar lagu farxo. waxaad mar kasta ogaataa in qoys kasta uu la kulmo xasaradaasna ay iyaguna xallistaan. uma baahnid inaad dibadda u soo saarto dhibka iyo cadaadiska familigaaga haysta, laakiinse markii aad qoys ahaan iskaga kaashataan isagaaba xalku iman. dhaqaalaha aad haysato dhammaan wixii caddaynaya hantidaada waa inay adiga gaar ku ahaadaan. lacagtu waa wax caalamka dhex wareega, waxayna badbedeshaa hadba xidhiidhka dadka kale aad la yeelanayso. haddaba waxaa habboon inaad si shakhsi ahaaneed u ilaashatid hantidaada, maxaa yeelay dad badan ayaa kuu soo dhowaanaya iyagoo raba inay wax ka ogaadaan jeebkaaga, kuguna colaadiya hantida Rabbi kugu manaystay. camalka wanaagsani waa raasamaalka uu qofku gaar u leeyahay, waana arrin sir ku ah. diin ahaan iyo dhaqan ahaantoona uma fiicna inaad dadka la wadaagto wanaagga aad samayso. haddiise aad faafiso dadku waxay ku arkayaan istus iyo qof kibraani ah. hadallo qalbigaaga dhaawacayana waad kala kulmaysaa, wanaag dambe inaad samaysana way kugu adkaanaysaa.